waa hubaal in soonku uu inoo leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo waaweyn haddii si sax loo soomo, balse dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha soonka qaldan waxay saameyn xun ku yeeshaan jirka, gaar ahaan marka soonka aan si sax loo maarayn. Muuqaalkan waxaan idinkugu faahfaahinaynaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn iyo sababaha keena. Marka qofku uu ku afuro ama uu ku suxurto cunto aan ku filnayn nafaqo ahaan, jirku waxa uu dareemaa tabardarro iyo daal. Nafaqooyinka muhiimka ah sida borotiinada, fitamiinada iyo macdanta noocyadooda kala duwan ayaa laga yaabaa inay yaraadaan. taasina waxay keeni kartaa murqaha oo xanuuna ama daciifnimo guud, awoodda jirka oo yaraata, hoos u dhaca awoodda waxqabadka maalinlaha. Cunto la'aanta iyo suxuurta oo laga tago inta lagu jiro soonka waxay si toos ah u saameyn kartaa heerarka sokorta dhiigga. Soonka qaldan waxaa ka dhalan kara hypoglycemia, waxa afka qalaad loogu yeero, ama sokorta dhiigga hoos u dhacda, taasoo ka dhalata raashin la'aanta muddada dheer oo sababa madax xanuun daran iyo dawakhaad. Hyperglycemia, sokorta dhiiggu aad kor u kacda, waxaa keeni kara cuntooyinka macmacaanka iyo sokorta badan ee afurka lagu afuro, taasoo halis gelin karta dadka qaar ee qaba xanuunka macaanka. Soonka qaldan waxaa sababi kara madax xanuun daba dheeraada ama degdeg ah, gaar ahaan marka qofku uusan cabin biyo ku filan ama cabitaanka kafeynka sida bunka iyo shaaxa, ama loo joojiyo si lama filaan ah. Cuntooyinka soonka lagu afuro ama lagu suxurto haddii aysan u dhigmin nafaqooyinka muhiimka ah sida birta iyo fitamiin B12, qofku waxa uu nuglaan karaa dhiig yaraan. Calaamadaha dhiig yaraanta waxaa ka mid ah daal joogto ah, neefsashada oo ku adkaata marka qofku uu qabto shaqo culus, midabka maqaarka oo jaallo noqda ama hoos u dhaca. Soonka qaldan waxaa sababi karaa culayska jirka oo kordha. Inkastoo soonku uu yahay waqti lagu xakameyn karo culayska jirka, haddana haddii qofku si joogto ah uu cuno cuntooyinka dufanka leh, sokorta badan ama kuwa shiilan afurka kadib, culayska jirka ayaa kordhi kara. Tanina waxay sidoo kale sababi kartaa in qofku uu halis u noqdo cudurrada dhiig karka iyo wadnaha. Soonka qaldan waxaa sidoo kale keeni kara dhibaatooyin la xiriira xagga dheefshiidka sida calool fadhiga ama constipation. Haddii ay yaraadaan fiberka ama jilifta cuntooyinka leh, biyaha la cabo, caloosha ayaa adkaan karta inay caadi u shaqayso. Cunista cuntooyinka dufanka leh ama la shiilay xilliga afurka waxay kicin karaan dib u celinta aashita caloosha, taasoo sababi karta laabjeex. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka dhasha soonka qaldan waxaa ka mid ah biyo yaraan. Tani waxay si gaar ah u saameyn kartaa dadka ku nool meelaha aadka u kulul ama qabta shaqooyinka adag. Calaamadaha biyo yaraanta waxaa ka mid ah maqaarka oo qalala, harraad xad dhaaf ah, wadnaha oo si degdeg u garaacma, madax xanuun joogto ah,